بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحبada qiimaha badan meel walba daafaca caalamka ka joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah ee SMS Somali TV baraha bulshada aan ku leenahay sida YouTube-ka iyo Facebook-ga waxaadna daawanaysaan oo la socotaan tartanka hibada qofka oo ka socda isla xarunta telefishinka oo ku taala iskiiska Sayidka wareegii koobaad ee tartanka ayaynu ku guda jirnaa saddexdii qaybood ee hore ayaan soo aragnay maantana qaybtii afraad ayaynu u madalsanahay in halkan lagu soo gudbiyo waxaan xasuusinayaa dadka daneynaya inay ka qayb galaan tartankan oo ka socda isla xarunta oo ku taala iskiiska Sayidka ee magaalada Muqdisho inay kala soo xiriiri karaan telefoonada shaashada ku qoran ka bacdina la soo hagi doono halkaan ay iska diiwaan gelin doonaan haddii Allah uu raali ka noqdo anigu waxaan ahay Yuusuf Maxamed Yuusuf Xaybro xubin kamid ah gudida sidoo kale laba xubnood oo kale gudida kamid ah ayaa iyaguna garbahayga fadhiya aadan iyo sidoo kale shooli dadka tartamayaasha waxaan ka codsanaynaa marka uu qof kamid yahay inay kuwa kale aamusnaadaan si aanu qofkaasi khalkhal u dareemin qof kasta oo tartanka halkan kaga qayb galaya soo istaaga mikrofonkana waxaan ka codsanaynaa inuu isagoo degan oo aan cabsi ka muuqanin uu stage-ka tago soona gudbiyo hibada uu markaa ku tartamayo dabcan hibada barnaamijka aan ugu talagalnay maaha oo keliyata inuu qofku heeso laakiin hibooyin dhowr ayaa jira oo ka mid tahay inuu qofku ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka kaga qayb gali karo barnaamijka sidoo kale haddii wax sawiri karo artist uu yaqaano uu kaga qayb gali karo maxaan ku dhahaa indhasracaad hadduu samayn karo inuu kaga qayb gali karo ama hibo kale oo qofka u gaara oo aan dadku ogeyn haddii uu jecel yahay halkan ku soo bandhigo barnaamijku wuu furan yahay fursadana waxaan u abuuraynaa dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay ka iman karaan gobolada dalka iyo inta ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda iyo hareeraheeda ama nawaaxigeeda waa maasantiin barnaamijkeenu gudagali doonaa dabcan kelmadaha dambe ayaan siin doonaa gudida xilliga gunaanadka markaynu soo gaadhno waxaan u yeedhayaa tartamaha ugu horeeya oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Xasan waa aniga oo ah Maxamed Cabdullaahi Xasan waxaan ka imid degmada Boondheere gobolka Banaadir waxaan ku tartamayaa heestii shay mira dacar heestii shay mira dacar ah ya heestii shay mira dacar hees badan buu qaadaa heestii ah maxaan ku daa kuwii hor haa ay horow gal walle xalay xogtaan helay xamxamtay shakada waxaan xiisa ku qabay walle xalay xogtaan helay xamxamtay shakada waxaan xiisa ku qabay ku xaraama jiifkii gumi waayay gogashii markan soo xasuustaba sidaad ii xumaysay ku xaraama jiifkii xiji waaya gogashii markan soo xasuustaba sidaad ii xumaysay xaakin waa ilaahay anna waan xijinayaa adna goysay xerigii ileen dumar xisma lahayn xaakin waa ilaahay sidaad ii xumaysay adna goysay xerigii ileen dumar xisma lahayn yaad tahay Maxamed Cabdullaahi Xasan maxamedow runtii heeska aad qaaday oo Allah naxariisto hore u qaaday shay mira dacar oo ahaa runtii fanaan weyn waxay lahayd cod ama laxan loo sameeyay guud ahaan laxankii heeskaasi oo dhan waad ka tagtay waxaad samaysatay laxan jeebkaaga dabcan aniga dhankayga codka waxaan ku siiyey 4 toonka waxaan ku siiyey 3 ereyada waxaan ku siiyey 5 oo qayb kamid ah waad qaladay masraxiyada waxaan ku siiyey eber teembadana waxaan ku siiyey 1 sidaa darteed aniga dhankayga waa maya Maxamed Cabdullaahi barnaamijka magaciisa waxaa la yiraahdaa hibada qofka ma ahan iskuul lagu tijaabiyo ama lagu tababarto meeshan
waxaanu rajaynaynaa inaanu helno hibo rasmi ah. hibo markaanu leenahay hibaanu raadinaynaa waxaa weeye qofka wax ku jiro. haddaad leedahay cod cajiib ah oo ummadda qancin kara waa hibo, waad soo bandhigi kartaa. heeska aad noo qaaday allahu naxariistee shay miro dacar oo ahaa runtii fanaan aad iyo aad hibo rasmi ah u lahaa, oo isagoo dhallinyaro ah oo aan kooxihii qaranka soomaaliya ka jiray soo gelin heesiisa lagu tartamay. waxaan u malanaya qofkii shanaad oo ku tartamay heeskan haddii aan qaldanay, ama waa qofkii afraad ama waa kii shanaad. waxaa halkaa gaarsiiyey waa hibada uu lahaa wey. marka barnaamijka waxaan raadinaynaa hibada inaan noqono. marka aragtideeda qof ahaaneed kaama hayo hibada iyada aan raadinayay. codka waxaan ku siiyey 4, toonka waxaan ku siiyey 3, erayada waxaan ku siiyey 4, masraxiyada 2 aan ku siiyey, teembadana 2 aan ku siiyey. wadarta guud markii la isu geeyo 15 dhibcood ayaad halkaas iskoor gareysay oo macnaheedu yahay ma aadan gudbin xaggayga. waxaan ku leeyahay maya, raadso hibo kale ood ku tartantay. aad baad noo mahadsan tahay. bismillaah, anigana waxaan qiimeeyey codkaagii 4 baan ku bixiyey, toonka 3 aan ku siiyey, erayada 3 aan ku siiyey, masraxiyada 2, teembana maba jirin halaan ku siiyey. saa daraaddeed waxaan leeyahay maya maya maya. waad mahadsan tahay maxamed cabdulaahi xasan. waxaanu fursad kuu siinaynaa inaanu tababar ku siino haddii aad sii jeceshahay inaad hibada fankaaga sii wado. tv-gu iyo annagu guud ahaanba waxaanu fursad kuu siinaynaa inaad xarunta timaado, training lagu siiyo. diyaar mowta? yes. waa mahadsan tahay. teleefonkaaga iyo kontaktigaaga guddida ayaa haaya, kabacdii waa lagu soo wacayaa. waad degi kartaa. mahadsanid maxamed cabdulaahi xasan. waa fadhiisan kartaa. saaro xuseen, waxaan ka imaaday xaafadda buulixuube. waxaan ka imaaday xaafadda buulixuube. maxaad ku tartamaysaa Saaray? waxaan ku tartamayaa hees nimcadareen ay qaado. hees nimcadareen qaado. haye codkaaga noole, mikrofoonkana u soo dhawow, cabsida iska saar, tartan baad ku jirtaa. isdhiirigeli marka koowaad adigu. ku tabay qalbiga, ku tabay ka tegay hurda waan ka tegay, talamayo hadiya jeer jacayl baa igu tarmo, tusaalo inaan noqdo tilmaam dadku iga dhigta, tallaabaanu soo jira dariiq dheerna waan ku sugay, jacayl baa dankay ka weyn anigu uma taaghaye, ku talagal inaad timaa taleefoon waxii ma tarin. waxaan kaa dareemaynaa cabsi fara badan. codkaada marna waad soo tufayso waanu maqlaynaa, marna waa tegaya. waad cod wanaagsan tahay, laakiin fursad kale ayaan ku siinayaa. ku celi na maqashii, isku day masraxiyada inaad noogu darto. fursad kale aan ku siinayaa, ku naqso codkana nooleeya soo saar adoo maad. mikrofoonka waad la bixi kartaa. darba gacanta waa ku qabsan kartaa sida aad waa jeceshahay yeel. kuma cunayna bahalama nihin marka sidaa yeel. aad iyo aad. ku tabay qalbiga, ku tabay ka tegay hurda waan ka tegay, talamayo hadiyo jeer jacayl baa igu darmo, tusaalo inaan noqdo tilmaam dadku iga dhigtaan, tallaabaanu soo jira dariiq dheerna waan ku sugay, jacayl baa dankay ka weyn anigu uma taaghaye, ku talagal inaad timaad taleefoon waxii ma tarin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sahra xuseen cali, runtii cabsi badan baa kaa muuqata. hibadaadii kugu dhex jirtay waxaa 90% luminaysa cabsida kugu jirta iyo codkaagii loo baahnaa inaad bannaanka u soo saarto oo aad moodid inaad shakhsiyan dib isugu celinayso. aniga dhankayga sahra codka waxaan ku siiyey 7, toonka waxaan ku siiyey 6, erayada waxaan ku siiyey 8, masraxiyadana waxaan ku siiyey 4 maadaama aanad wax dhaqdhaqaaqa samaynin. teembadana waxaan ku siiyey 5. saa darteed sahra xuseen cali
aniga dhankayga waa haa haa haa. وهاجاك سحر عاديات بعد ما تصنتهاي طبعا كان كوكو علينا هي وحن تريم هي إناد سيدا سك لانتين ديالي كرتو عودك وحن كسية تضبع تونك وحن كسية لح الرياضة وحن كسية سجداد وحقلا ضمان مقل مسرحية دا حوجا اسكو ضيبة دي موجسة أفر بان كسية تيم بدا لح بان سية طبعا مركا لسوق كوبي صدق دبعود بعد كده روساتي حقيقة وها ها لكن دلال بدن باكو دما زارا وانتاس حتى عاد سميسي انتاس حتى عاد سميسي waxa laga rabo dhab waa intaas inaad wali cabsiya ku celinayso waxa dareemaa inaad cabsanaysid laakiin intaada kala actualment okay ahayd waayahay codkaaga 8 ayaan ku siiyey toonka heeska ku celi markii lagu dhaay xataa toonkii hore aad ka qaadayd iyo celisay aad iyo aad 7 aan ku siiyey toonkaagii ereyada 8 waxaad qaladay ma maqlin masraxiyadaada dhaqdhaqaaqa laga rabaa marka laakiin xarakaad yar oo teebada inaad la qabsanayso waa arkay 7 aan ku siiyey teebada 8 aan ku siiyey waa dhowdahay 38 dhibcood aan ku dhigay meel ha aan ku leeyahay hor u soco waa mahadsantahay Saarax Xuseen Cali anigana dhibcahayga baan loobay 30 dhibcood baan ku siiyey 99 dhibcood baad haysataa gudida ku siisay haa waad gudubtay waad degi kartaa qofka xiga ayaan u yeedhinaa marka السلام ورحمة الله. waxaan ka salaamayaa guddiga tartanka iyo hiboolayaasha tartamaya waxaan kale salaamayaa maamulka iyo bahda Soomaali SMS TV oo tartanka qurta badan qabanaya magacaygu waa Bashiir Axmed Abdi degmadeedu waa degmada Kaaraan ay maxaad ku tartamaysaa Bashiir waxaan ku tartamayaa suugaan maasada waxay leedahay sidatan maasada dheer waa maasooyinka aan sameeyay maasada u dheer marka waxay u dhacay sidatan bulshadii Soomaaliyeed intaan burburku kugu dhicin balbal isu weerarin barar la isu dabargoyn dhiigaagu biyo noqon intaan biri mageydada loo dilin qabiil baas cadaaladuna budda gelin baasa iyo lacag noqon intaan belada ku iman buuqya qayla kula harin nabad iyo baraaraad ku bariisanayseen intaan qaranku u biin intaan qaranku u biin baadi loo durbaantumin baaskiyo dhibaatada bililaqadiyo isdilkiyo barakucu ku daashanin intaan ilmadu ka burqan bushiga iyo qabyaaladu beedka kugu soo gelin dayartiyo barbaarada intaan badaha lagu qubin banaanada iyo saxaraha dhalinyartu isbiimeyn baxsadkooda laga nixin intaan baafintooda BBC-da laga werin bulsho ibrismaadiyo barwaaqad ku nooleed intaan ciida bilan iyo biriga iyo badaadaba shishaayuu soo baxsan si ay kaaga boobaan khayraadkaaga badan iyo macdantaada la bixin Soomaalidu intay baryin baahalka ee gumaystaha Burundi iyo Amhaaradu intay baabka noo furin intaan sharafku beec noqon bulshoy waxaad lahaydeen ciidamo ballaaran Afrikaanku ka baqi jiray intaan dhaqanka boqraniyo hidaha la baalmarin tushishay loo bugin bilcaamuhu isqaawinin xumaan baratan loo gelin intaan beenta lagu rafan bulshoy waxaad lahaydeen dad wanaaga beegsada dhulkeenoo barwaaqo ah xooluhu ka buuxaan beeruhu iseestaan wabiyadu burqanayaan dalagyadu ka baxayaan hodan ku ah waxbeerista badar baadiye biyabale intaan baahi loogu dhiman baaqay aad loo dirin iyo beesha caalamka bulshay waxaad lahayd tacab intaan badagu ku talin baaruud daqiiqdiyo markaad bunduuqa qaadatay sida baal isu cuntay ummad yahay balaayada adigaa u baahday ma burburay dalkaagii dadkaagii ma baaba'ay badankiin ma dhimateen beledkii ma dumiseen BM ku duqayseen bilicdiisii ma lumiseen boor iyo ma noqday dambas beri ma ka carrawdeen ma baxdeen ma buubteen 100 jeer ma guurteen asaagiin ma barideen baqdintii calaadaha ma ka baana weydeen wali idinka oo buko 30 sano ma buuxsantay baabi iyo halaagi baylahdaadi shacabow bakaylaha sidiisii ayaad u kala baahday waa baadiyowday dadaalo isbiirso isa soo bahayso samir iyo dulqaad badi xaquusan ilaah bari ballan lama ilaabo talalaga ma boodo bini'aadam dhiigi bilaash lagu ma daadshe ka baaqsada dagaalada birtaad u sidataan boogihii dhaawici ayaa wali bukaano waxay rabaan bogsiime
waxaan beydka maansada ugu soo bayaaniyey buugii qalinka u sitaa suugaanta badweynta ah bishimuhu u tiriyaan waa inaad wax iska bedeshaane baraaruga dadkayow. aad iyo aad iyo aad baad umahadsan tahay bashiir axmed cabdi. runtii abwaan aadan shimbarleys baa joogo, waxaan dabcan jeclaysanayaa xubin ahaan inuu iga horeeyo. aad baad u mahadsan tahay bashiir. gabaygu wuxuu leeyahay dhowr sharci ayuu leeyahay. shuruucda uu leeyahay waxaa kow muhiim ah inuusan jabnayn oo aanay jirin yacni god sida hadalkii loo yiri hada oo kale aan ahayn. gabay wuxuu ku socdaa tira isleeg xisaab buu ku socdaa. erayo delqaaf ah runtii ma maqal, laakiin ilaa iyo waxaan xasuustay ama arkay 6 meelood oo jaban ayaan tiriyey. 6 meelood oo jaban oo sheeko u eg. jabnaantu waa wax sheeko u eg wey, micnaheedu sidaa wey. dhibcaha ugu badan oo aan wax ku saxaynay waxay ahayd yani 50 qofkii dhibcaha ugu sarreeya, maadaama tartankeena intii badnayd waxaan wadnay ay ahaayeen heeso. hal qof baa gabay hortaa noo tiriyey, qofkaasi wuxuu naga aruursaday dhibca aad iyo aad u sarreeyo. marka 50kii ayaan qiimeynayaa. markaan 50ku siin lahaa 6 qalad oo gaf ku ah gabaygana aan ka dhex maqlay meesha. runtii delqaaf ma ahan, laakiin waa ku wada calaamadayn karaa haddii aad u baahato ayay dhegteedu qabatay. marka 6daa dhibcood waa kaala haray. marka waxaan ku siinayaa 40 iyo maxaa la yidhaahdaa iyo 4 dhibcood baan ku siinayaa. wareegga kan ka dambeeya haddii aad ka gudubto asxaabta kale ay ku fasaxaan, kolley waa aniga aragtidayda taas. inaad iska toosisid oo aan jabnaan, hal erayoo jaban lama aqbali doono wixii hadda ka dambeeyo. dadka waxaanu arkaynay heesihii xitaa teembooyinka oo qaldan dhibcaan qiimeyn baanu samaynaynay. marka qiimeynta iyada ahayd aanu samaynay ayaan adigana maartay, maadaama gabayo badan hadda aan ahayn oo dad gabayo badan noo tiriyey ayaad fursaddaas iiga heshay. marka dadaal badan baan yaan ku furayaa insha allah. marka xaggayga waa haa. okay, aad waa mahadsan tahay bashiirow. soo dhawow mar kale. dabcan halkan waxaad nooga tirisay maanso muusan ahayn gabay, sababtay gabayga godkiisu waa 12. adigana runtii wuxuu isugu jiray maraad 9, 10, 8. dabcan waxaa jira miisaan lagu cabiro marka uu qofku wax tirinayo. hadalka aynu ku hadalaana waa 2, waa tix iyo tiraab. tix waynu naqaanaayo wixii suugaan lagu sameeye wey. tiraabtuna waa hadalka caadiga aynu ku hadalno. dabcan dhowr eray oo hadal caadiya baa ku jiray maansadaada. waxaan jeclahay inaad faham badan aad ka yeelato. runtii nin wax samayn karayaa tahay oo seed maansadaada aad iyo ujeedkii iyo dariiqaad ku socotay dariiq fiican buu ahaa, laakiin meelo badan waxaa kaa soo gelayay tiraab ah. tiraabtuna waa hadalka. marka inaad barato tixda iyo tiraabka inay ku kala duwan yihiin, midna suugaan tahay midna hadaltay. marka aniga dhankayga bashiirow waa haa 35 dhibcood baan ku siiyey. soo dadaal. waxaan rabaa wareegga xiga inaad la timaado suugaan. mahadsantahay bashiir. hortaa hal qof kaa horreeyey horta aan tartanka intaan ku jirnay aan gabay ku aragnay. nin wiilkaas iyo adigaba waxaan aad uga helay ujeeddada aad qaadateen, ujeeddada wacyigelinta ah oo soomaalinimada aad baan ugu qanacsanahay. barnaamijkaanna insha allah waad gudubtay. anigana waxaan ku leeyahay haa 43 dhibcood baadna kuu qoran. waa mahadsantahay bashiir, waad degi kartaa. guulayso. bismillaahi raxmaani raxiim. aad ayni salaam dhammaantiin gudida inta meesha joogto. waa magacayga hani cali waaye. waxaan ku tartamayaa hees Safiya Tusmo. heestii Safiya Tusmo. haa. waa hagaag farowga. qoyskii arooskii qarnigii hore tegay, qoormadan ku noolaa qaxariyo dhib mooye, qabow iyo harar kama helin, qabow iyo kamaan helin. qalbigayguna maantana ruuxu qabsadaye qomamada. qalbigayguna maantana ruuxu qabsadaye nigii hore tegay, qoormadan ku noola
qaxariyo dhib mooye qabow iyo harhar kama helin qabow iyo har kamaan helin qalbigayguna maantana ruuxuu qabsadaye nabarada qarsooniyo qortayda dhayla qosolkuma arkaaye wuu qiiqayaa alla qiiqayaa yarku qiiqayaa caro بسم الله heeska waxaan kugu siiyey codkaagii 3 toonkaagiina 3 ereyadaadiina 3 masraxiyadaada 1 teembadana 1 saa daraaddeed waxaan ku siiyey dhibco 11 dhibcooda waxaan leeyahay maya 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 وهجاج هني علي محمد codkaaga waxaan ku siiyey 5 toonka waxaan ku siiyey 6 ereyada waxaan ku siiyey 6 masraxiyada waxaan ku siiyey 5 teembadana waxaan ku siiyey 4 salaatiga dhibcaha guud aan ku siiyey 26 aniga dhankayga waa ha وهجاج هني marka horeyso horta heeska ma aanan garanayn oo hees aan naqaanay ma ahayn safiya tusmo asxaab dhow baan nahay codkeeda waa aqaanaa meelaha ay ka heesta waa aqaanaa ilama ahayn meel aan inaba ha yaraatay kaga shabahoon yidhaahdo tusma halka ku jirtay maadaama aan miraha garanay ugu yaraan waxaan isdahaa bal wax soo dhaweyna codadkeedii aan raadiyey iima soo bixin sidaa darteed codka waxaan ku siiyey 3 toonka waxaan ku siiyey 3 ereyada waxaan ku siiyey 4 oo dabcan ilaah mala awaal waa ka xumahay masraxiyada waxaan ku siiyey 3 teembada waxaan ku siiyey 2 15 dhibcood xaggayga waa maya maya maya